السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابته واني السلام يا دمان أصحابته واني السلام يا إن شاء الله ما أنت وحاربا ما شاء الله سي عجيبة تمها ألاب آدو في عن أو تمها ساريسا أو تمها قرحينيسا وآدو قرحينيسا وديرينيسا سيدي هنديدة تمها كدقيسا هدي سي وناكسن لو استعماله أو tala wanaagsana haddii lagu isticmaalo maasha allah timaha way baxayaan wayna dheeraynaysaa waxa weeyaan waxayna ka dhigaysaa calashaan way badinaysaa timaha waxa weeyaan haddii ay maaragtay timahaagu meelo faaruqa ay leeyihiin waa timay kasoo saaraysaa waxa weeyaan wax wal oo waxa weeyaan timaha cadcadaan haddii ku jiraan haddii ay maaragtay allergy ay leeyihiin mashaakil kasta oo madaxa ka haysta aad bay faa'iido ugu leedahay saliidaasi waa master oilkii aan naga sheekeynayay amba khardalkii oo saliidiisii weeyaan iyo coconut iyo olive oil intaba waa la garanayaa insha allah laakiin waxaa adag sidii loo heli lahaa hindida ayaa iibisa waa maasha allah aad bay u wanaagsan tahay timahana way saaraysaa maasha allah qurux bay ka dhigaysaa dhumuc bay u yeelaysaa waxa weeyaan dhalaal oo kale ayay ka dhigaysaa midda kaleetay cirada waxa weeyaan way baabiinaysaa marka waxa weeyaan saliidan khardalkii weeyaan aan ka sheekeynaynay weeyaan marka insha allah timaha waxa weeyaan haddii aad ciro leedahay way ka baabiinaysaa marka maasha allah waxa weeyaan timahaaga aad buu u bixinaysaa qurux bayna ka dhigaysaa adigaa ogaan doona insha allah waxaan rabaa inaad ka warkeentiin ood insha allah intaad marsatiin bal sida ay timahaaga amba timihiina ay ka dhigto ayaan rabaa inaad igula soo wadaagtiin komadka insha allah aniga waxaan aaminsanahay sida timaha hindida ka dhigaysaa aad bay u qurxinaysaa waan isticmaalaa waa qurux weeyaan marka idinkuna waxaan rabaa sidii xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaad naftaada la jeceshay walaalkaa la jecloo baa layidhi marka insha allah anigana waxaan rabaa inaad ila aragtiin sida ay timaha u saarayso waa khardal weeyaan waa khardalkii aan ka samaysanaynay sidii mootaarkii aan cuntada lagu cunayo kale oo saliida weeyaan cuntadana waa lagu karsan karaa madaxa la marsan karaa jirka la marsan karaa insha allah maalinka ayaan ka sheekeyn doonaa jirka iyo faa'iidadu leeyahay laakiin maanta waxaan ka hadlayaa timaha iyo faa'iidada u leedahay marka waxaan ku leeyahay timahaaga maasha allah adiga yaabi doona marka aad marsatid marka insha allah sidee baan u isticmaalaynaa amba sidee baan u marsanaynaa saliidahan waxa weeyaan haddii aan master oilka ka hadlo waxaan rabaa dhammaan iyo coconutka iyo olive oilka in aan isku daro oo laga faa'iidaysto sida loo isticmaali lahaa saliidahan marka aan samaynayno insha allah mid walba waxaan rabaa malqaacad inaan ka darsado oon isleekeysiyo qiyaasta marka aan marino madaxa asxaabey wakaasi insha allah sidee baan u isticmaalaynaa saliidahan marka insha allah waxaan rabaa insha allah in aan intaa ku darsado oo coconut oil ah waa coconut oil boqolkiiba boqol weeyaan waa pure weeyaan insha allah intaas ayaan rabaa insha allah in aan ku darsado halkan waxaa igu jirta malqaacad olive oil ayaan ku darayaa insha allah waxa weeyaan coconutkii iyo malqaacad olive oil intaas ayaan rabaa inaan isku daro waxaan kaloo ku darsanayaa master oilkii amba khardalkii weeyaan insha allah timahaaga waxay ka dhigaysaa maasha allah iyo coconutkii iyo olive oilkii waad aragteen olive oilkana waad aragteen insha allah waxaan rabaa maan iminka inaan ku daro khardalkii amba master oilkii insha allah waa timaha waxaan ku wari subxaan allah maasha allah bay ka dhigaysaa qurux bay ka dhigaysaa aad
baa idigu boorinaya amba aad baan idigu sheegayaa in aad marsatiin oo timihiina aad bay u qurxinaysaa meelaha daldaloolka amba meelaha timuhu kasoo go-ayaan ayay hagaajinaysaa waxaa kale faa-iido u leedahay malqaacadaasaan ku shubayaa malqaacada iyo waxay ka daatayba waynaga arkaya maasha allah aad bay u adag tahay aad bayna u culus tahay malqaacad wax ka badan inaad ku darsatid ma wanaagsan wayar adag tahay ilmaha caruurta 10 jir wixii ka yarna inaad u marisid maaha waa intaasay dhibaato u keentaa waa saliid aad u culus oo waxa weeyaan 10 jir wixii ka yar ha u marinina laakiin 10 jir wixii ka weyn waa marsan karaa maasha allah qurux bay ka dhigaysaa timahana aad bay u qurxinaysaa waan yareysanayaa insha allah intaasi ayaan rabaa inaan isticmaalo maanta wakaasi kolba in yaroo malqaacadaan ku darsaday la iskuma badiyo waxa weeyaan master oilku aad bay u adagtahay amba way culus tahay marka insha allah ha isku badinina wax yar baad marsanaysaa timahaaga waxay ka dhigaysaa sida timaha qolooyinkan eeshiyaankan bahindida sidooda u qurxinaysaa sidee baanu marsanaynaa waxaan qabanaynaa in yar ayaad gacantaada ku qaadanaysaa in yar ayaad qabanaysaa waxa weeyaan intaa yar intaad qabatid ayaad gacanta ku shubanaysaa gacanta markaad ku shubatid labada gacmoodba timaha ayaad dhex gelinaysaa waad ku masaaj garaynaysaa maasha allah timaha ayaad waxa weeyaan wad dhex gelinaysaa waad ku yara xoqaysaa timahooda waxa weeyaan masaaj oo kale aan aad u adkayn timaha markaas aad ugu masaaj garaysid 20 daqiiqo ayaa timahaaga aad masaajka ka dhigaysaa oo waxa weeyaan ku yara duugaysaa markaad 20 daqiiqo ku duugtid waad ka qaadaysaa faraha 20 daqiiqo waad ka qaadaysaa saacad amba 2 saacadood ayaad ku daynaysaa marka aad maxaa la yiraahdaa intaas aad isku darsatid waxa weeyaan 20 daqiiqo timaha ayaad ku duugaysaa oo dhex galgalinaysaa ilaa waxa weeyaan waxay kala gaxaynaysaa dhiigga waxa weeyaan wareega ayay kala gaxaynaysaa doora damowiya waxa weeyaan masaaj markaad timaha ku samaysid amba waxa weeyaan timaha ku duugtid dhiigga ku jira jirka oo dhan waa kala gaxaynaysaa marka maasha allah marka 20 daqiiqo marka aad ku duugtid waxaad samaynaysaa saacad amba 2 saacadood ayaad ku joogaysaa marka waad iska meeraysaa adiga arki doona timahaagu maasha allah siday noqdaan waxaana rabaa inaad igu soo sheegtiin komadka dad badan baa ka faa'iidaystay oilkan master oilka aad baa looga faa'iidaystay marka inaad ka faa'iidaysatiin ayaan rabaa oo timihiina wax kasta oo mashaakil oo madaxa kaaga jira waxa weeyaan waa ka dawo waxa weeyaan dhiigga waxa weeyaan wada jirka waxa weeyaan dhex socda insha allah waan iska soo sheekeyn doonaa isaga oo wax kale ku sameyn doono saliida laakiin iminka waxaan doonayaa maanta timaha si u saarayso in aan ka sheekeeyo marka dhiigga waxa weeyaan wejiga dhiig baa jooga oo waxa weeyaan way kala saaraysaa insha allah iyadoo wejiga la marsanayn waan ka sheekeyn doonaa laakiin maanta timaha amba madaxa sidii loogu duugi lahaa 20 daqiiqaad ku duugaysaa saacad amba 2 saacadood oo ku joogaysaa kabacdina waad meedhanaysaa marka maasha allah timo waxaan ku yidhi yaa salaam adaa yaabi doona timahaagu say noqdaan sidoo qurux badnaade hadday adag yihiin way jilcayaan hadday iska jilicsan yihiin waxaan ku yidhi sida dahabkay noqonayaan qurux way dhalaalayaan oo qurux buu ka dhigayaa marka insha allah waxaan rabaa in aad marsatiin oo waxa weeyaan aad timiin aad ku quruxsatiin sida waxaan ku yidhi reerahan hindida soodii noqon doonaan timahaagu maasha allah waxay ka baxdaa khardalka amba saliidan waxaa laga keenaa hindiya ayaa laga keenaa waa saliidaha hindiya lagu marsado maasha allah hindida aada u isticmaasha marka waxaan rabaa inaad ka faa'iidaysatiin meelaha dukaamada hindidana waa laga helaa marka insha allah ka faa'iidaysta cuntada waa lagu karsadaa aad bay faa'iido u leedahay waa indiga soo sheekeeyay khardalkii kii cunto lagu cunayo iyo kii maxaa la yidhahdaa sheekadiisa aad baan idiga sheekay khardalka insha allah isagoo mudan waa soo wadaa marka insha allah waxa aan rabaa in aad ka faa'iidaysatiin timaha sidoo qurxinayo oo aad ugu faa'iido u leeyahay in aad ka faa'iidaysatiin ayaan maanta rabay marka waxa weeyaan sida ay idin sheegay 20 daqiiqo ayaad ku duugaysaa timaha markaad ku duugto 20 daqiiqo kabacdi saacad amba 2 saacadood ayaad ku joogaysaa timahaaga aad yaabi doona maasha allah marka waxa weeyaan
meelaha maadaragta cadcadaanka ee timaha cirada waxa weeyaan way ka baaba'aysaa timahaaga mudab u ka dhigaysaa waxa weeyaan oo kale maxaa la yidhahdaa qurux bay ka dhigaysaa dhalaal bay timaha waxay u keenaysaa dhalaal bay u keenaysaa marka insha allah iskumaan badin in yar baan sameeyey marka insha allah saliido badan oon sameeyeyna way jirtaa maasha allah lools oil baa la yidhahdaa marka insha allah saliidaha qurdiisa haddaad rabtiin waan hayaa insha allah tu dhabar xanuun haddaad rabtiin haddii jirka loo doonay in loo marsado oo romatism hadduu ku hayo saliidaha loo marsado timaha maasha allah saliido badan baan hayaa insha allah oo faa'iido badan marka insha allah haddaa u baahantiin waa ila soo xiriiraysiin insha allah saliido faa'iido la weeyaan oo jirka u fiican oo waxa weeyaan timahana wada bixinaya dhammaan marka insha allah waan rabaa inaan ida tuso haddii ilaahay idhaahdo saliidahaasi waatan saliidaha yar insha allah waa kuwaasi waan hayaa saliidahaas waan iibiyaa insha allah waana qiimo jaban aad buu u fiican yihiina waxa weeyaan timaha ay wada saarayaan gebi insha allah iyada oo waxa weeyaan waan ku darayaa wakaasi dhibic yar baan ku darayaa intaa yar yadna waa kaasaan ku darsanayo waa castor oil maasha allah aad bay noo fiican tahay maasha allah bay ka dhigaysaa waxa weeyaan saliida badan aan isku dardaray maasha allah marka saliidaasina waa castor oil maasha allah timahay qurxisaa yadna waad ogtihiin maasha allah marka intaa markaan isku darno bal idinka ayaa yaabi doona zayt loos qudhadeeda waad ku darsan kartaa looska saliideeda zayt loos almura iyo waxaa jirta iyo waxa weeyaan maxaa la dhahdaa mid labada zayt loosku waa laba nooc weeyaan nooc baa wanaagsan oo fiican noocaasi ayaanan ku darsadaa saliidaha marka insha allah saliida looskaad ku darsan kartaa coconutkaad ku darsan kartaa saliida castor oilkaad ku darsan kartaa olive oilka midaad doontaad ku darsan kartaa bal waataa quruxda say noqotay maasha allah timaha ku masaaj garee ku qurxi aad baa waxaan kuula adiga yaabi doona insha allah marka ha laga faa'iidaysto iyadoo oo waxa weeyaan timahaaga subxaan allah maasha allah waxaan ku sheego ma garanayo timahaaga waxaan kuula adiga oo cajiib baad arki doontaa timo waxaan kuuli sida waxaan kuuli timaha lagu raaxaysanayo ayay noqon doonaan meelaha waxa weeyaan timaha faaruqa ee waxa weeyaan timaha googo-ay waxa weeyaan waa u dawo waxa weeyaan oo way kasoo saaraysaa timo cusub oo si beebigoo kale ayay usoo baxaysaa laakiin waa idiin sheegay ciyaalka looma marinayo 10 jir wixii ka weyn unbaa marsan kara saliiddu way culus tahay waxa culus waa castor oilka ayaa master oilka culus marka insha allah khardalka zayt alkhardal taasaa culus marka insha allah ciyaalka dadka waaweyn unbaa marsan kara dadka yaryar ha laga ilaaliyo 10 jir wixii ka yar ha laga ilaaliyo laakiin dadka waaweyn maasha allah qurux bay ka dhigi doontaa adiga yaabi doona insha allah dee qurux ayaa waxaan ku uri maasha allah adiga waxa weeyaan timahaagu sida ay noqdaan sida waxaan ku uri biyaha iyo kala daadan doonaa aad buu qurxinaysaa timaha marka insha allah aan ka faa'iideysano saliidahaas aad ka wanaagsan timahaagana aad buu qurxinayaan maasha allah dee waa kaasi asxaabtay marka haddaad marsatiin aad waxa weeyaan insha allah waxa igula wadaaga komadka igula wadaaga iyo soo sheega timihiina say isku bedeleen iyo siday noqdeen idinka yaabi doon wadiga arkay dib way adkaatay waa maasha allah waxa weeyaan timaha waxaad ku duugaysaa markaad ku duugtid waxa weeyaan 20 daqiiqo iyo amba marka 20 daqiiqo ku duugtid timaha saacad amba 2 saacadood ayaad ku yara joogaysaa waad meeraysaa adiga weekii 2 jeer baad isticmaalaysaa weekii 2 jeer ayaad isticmaalaysaa isku badin waan si dhibaato u keentaa maadaama ay kala kaxaynayso dhiigga madaxa ku jira waxa weeyaan sidii markaad ku masaaj garaysid dhiigga ayay kala kaxaynaysaa marka waxa weeyaan timaha meel kasta oo go'day way soo celinaysaa matalan waxa weeyaan qofku marka uu kalo matalan sixir ku hayo kale waxa weeyaan timuhu iska googooya timuhu xoqaa marka taa quradeedu waa dawo khardalka waa inagii noo sheegay masterka wuxuu ka daweeyaa sixirku ka daweeyaa jinku ka daweeyaa
jinkuu ka daweeya sixirkuu ka daweeya mastarku marka insha allah waxa weeyaan madaxaad iska marinaysaa dad waxaa jira aan hameenkii seexan dad waxaa jira maxaa la yidhahdaa haddii la sixray hadduu jin ku jiro timaha iska googooya oo aanba timaha feerin karin oo waxa weeyaan aanba meerashada iska diida markaa qofkaasi aad bay faa'iido ugu tahay dadka waxa weeyaan jinku ku jiro dadka waxa weeyaan isha ku jirto ma maydhaan dadka qaarkood oo meerashada way nacaan oo waxa weeyaan sidaasunba usoo fadhiyaan meerasho la-aan bay guryaha ku fadhiyaan marka insha allah asxaabay waxa weeyaan timahana waxa weeyaan taa dadka haddii qofku isagu uuna timihiisa feerayn oo xanuunsanayo ha loo mariyo waxa weeyaan tii aan idiin sheegayay waxa weeyaan khardalkii amba mastarkii aan ilaa sixirka waa ka dawo waxa weeyaan saliidiisii weeyaan marka waxaan rabaa inaad madaxa marsatiin insha allah qurux bay ka dhigaysaa timahana way ku qurxinaysaa timahaagan waxa weeyaan aad bay dawo ugu dhigaysaa waxa weeyaan meelaha waxa weeyaan timaha iska gogoyna sidoo dhan way soo saaraysaa sida ilmo yar timi uu soo baxayo oo kale ayay timaha kugu soo saaraysaa marka insha allah aa laga faa'iidaysto waana kuu dawo waxa weeyaan madaxaaga dawo tahay sixirka iyo jinka iyo wax kasta timaha haddii ay dhibaata kaa qaysato oo dhan mashaakilka kaa haysta timaha oo dhan waa ka dawo waa master oilka insha allah taasaa ka dawaa zayt alkhardal ayaa ka dawaa insha allah aan ka faa'iidaysano wakaasi waxa weeyaan madaxa hala mariyo wiigii 2 jeer hala marsado maasha allah 20 daqiiqo markaad marsatid aad ku duugtid madaxa wadarkaas way adkaatay 20 daqiiqo markaad ku duugtid madaxa amba ku masaajka aad gusid ood labada gacmood dhex gelisid oo si aad ugu yara hagaajisid waxa weeyaan saacad amba 2 saacad ka bacdina waad iska mayraysaa adiga arki doona insha allah aad baa idiin salaamaya dhammaantiin waan isoo dhaweynaya insha allah hayga iloobina walaalihiina kale hayga iloobina inaad u sheergalaysiin walaalihiina kale ee xanuunsanaya amba dhibaataysan amba timoo ka go-ayaan amba timoo dhibaato ka haysto mashaakil hadduu ka haysto madaxoo dhan waa ka dawo madaxa hadday dhibaataba ka haysato ilaahi subxaanahu watacaala madaxa wax kasta oo mashaakil amba dhibaato haysata waxa weeyaan waa u dawo marka insha allah walaalahaaga kalena gaarsii walaalahaaga kalena u sheergaree haddaa wadaan insha allah like hayga iloobina subscribe-ka hayga iloobina insha allah aad baan idiin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu